cayayaan markaa dhibay beerahaaga isticmaal nidaamka la yiraahdo IPM ama Integrated Pest Management. Videogan waxaan uga hadlaynaa qaabka kormeerka iyo la socodka cayayaanaadka beeraha, waliba khaas ahaan waxaan si gooni uga hadlaynaa cayayaanka la yiraahdo Fall Armyworm. laakiin kaartooyinkan iyo fikradahan waxaa loo bedeli karaa cayayaanaad fara badan si beerta looga ilaaliyo dhibaatooyinka ay u keeni karaan cayayaanaadkan. السلام عليكم كسر هذا الفيديو كله ودين داري سفام سوماليا ونقول تلاقلنا إنك في فائدستان ضدك الصوماليات مقعي علي باشي فضلا هديك عصب تاع كنال كان سبسكرايب ده بيل كان تابو سيسكو في الفيديو كستان سوقت بينه لأنه وذا وجود بي ولا الله كلا الصوماليات سيوقف فائدستان ومع سنتين. Integrated Pest Management وحلو يقانو أما لاسو قابي IPM واستراتيجية وعود صاريستا إن حلقة دير عاد كتلقشو إن beertaada aad ka ilaalisid cayayaanka iyo dhibaatada ay keeni karaan adoo isku daraysid kaartooyin ay ku jiraan biological control waxa la yiraahdo waad isticmaalaysaa cayayaanaad kale cultural control iyo pesticide sun ay isticmaalaysid kaartooyinkaas oo dhan ayaa la isku darayaa waxa kale oo taas oo kale lagu darayaa oo laga maarmaan ahayn waxa loo yaqaan scouting ama surveillance oo aad kormeer beerta ku samaysid oo og tahay cayayaanaadka beertaada jooga nidaamkaas oo dhan oo la isku daro ayaa waxa loo yaqaanaa Integrated Pest Management. marka videogan waxaan uga hadlaynaa sidii Fall Armyworm loogu sameyn lahaa Integrated Pest Management. marka videogan inkastoo aan uga hadlayno Fall Armyworm haddana Integrated Pest Management waxaa loo isticmaali karaa cayayaanaadka beertaada dhibay oo dhan ha ahaato aphids ama midka loo yaqaan malabisada spider mite mealybug iyo kan aad u dhibay beeraleyda Soomaaliyeed oo dhinaca yaanyada tomato fruit worm la yiraahdo marka cayayaanaadka dhan ayaa loo isticmaali karaa marka inkastoo uga hadlayno Fall Armyworm haddana kuwaas oo dhan ayaad u isticmaali kartaa kaartooyinka oo Integrated Pest Management. videoga koowaad marka waxaan uga hadalnay oo kugu baraynay hordhacna aan ka sameynay Fall Armyworm iyo sida loo aqoonsado iyo life cycle-kiisa iyo dhaawacyadiisa ayaan uga hadalnay haddii aadan fiirsan fadlan fiirso laakiin videogan waxaan uga hadlaynaa qaabka kormeerka iyo la socodka cayayaanaadka beeraha oo dabcan uu ku jiro Fall Armyworm aan awood ku saarayna videogan marka waa qaybtii labaad insha Allah cultural control pesticide control iyo PDF-ka gadaal ayaan ka soo sameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waa laga yaabaa video kale inaan soo dhexgelino laakiin insha Allah waan soo day doonaa kuwaasna haddii Ilaahay yiraahdo sababtoo waxaan rabaa in cayayaankan aad loo fahmo oo dadku ay bartaan si la isaga qabto dhibkiisa sababtoo dhib weyn ayaa laga yaabaa beeraleyda inuu ku soo wado Soomaaliyeed haddii aan la dagaalamin oo fududeysano cayayaankan marka sida sheegnay videogan wuxuu ku saabsan yahay scouting surveillance and early warning qaybta ah oo Integrated Management ayaan uga hadlaynaa ama qaabka kormeerka iyo la socodka cayayaanaadka qaybtaas ayaan videogan kaliya ayaan awood ku saaraynaa ku kala gadaal ayaan ka sameyn doonaa sida aan sheegnay marka scouting maxaa laga wadaa marka scouting waa hubinta khatarta suurtagalka ah ee ka imaan karta cayayaanaadka beertaada ka jira sababtoo ah marka scouting samaysid haddii cayayaanku aad u yar yahay dabcan khatar ma kuu keeni karo laakiin marka aad scouting ku samayso aad hubisid waxa arkaysaa cayayaanka saa'idka u badanaya oo khatarta kugu soo wada marka early warning ayaa sameynaysaa in u sii diyaar garowsid cayayaankaas halista kugu soo wada iyo kuu sahlaysaa marka scouting samaysid dabcan markaas scouting sameynaysid waxa laga rabaa inaad qalinkaaga warqadaada aad wadato oo aad la socoto sidii wax u dhaceen bilowgii ilaa dhamaadkii inaad la socoto ayaa la rabaa ee isha kaliya ka fiiri ma ahan si nidaamsan ayaa la rabaa in loo sameeyo marka ujeedooyinka kormeerku waa waqti hore inaad ogaatid ukumaha ama katabilaha yararka ah ee beerta ku jira kuwaas oo si fudud loo xakameyn karo waa ka fudud yihiin kuwa weyn inaad xakamaysid waxa ka fudud inaad kuwa yaryar awoodda saartid marka kormeerka sidaas darteed waa inaad bilowdaa xilliga uu dalaggu soo baxo oo bilowdo yaryar yahay waa inaad bilowdaa eedan u sugin caleentii oo la cunay iyo dhaawacaad aragto iyo dhibaatadii oo badatay waa inaadan sugin aad xilli hore aad bilowdaa shaqada marka laba hab ayaa loo adeegsan karaa kormeerka mid waxa la yiraahdaa field scouting oo inaad beertii intaad qalinka waraaqdii aan ku tusno kala qaadato aad dhex gasho oo aad saas gadaal ayaan kaa soo doono aad ku fiiriso inta cayayaan ku jirta beerta midna waxa la yiraahdaa pheromone traps ayaa la yiraahdaa isagana gadaal ayaan kaa tusaynaa marka beertii inaad kormeer ku samaysid iyo surveillance iyo la socodka cayayaanaadka beertaada ka jira aad ayay muhiim u tahay si aad u ogaatid inuu joogo Fall Armyworm oo kale inuu beertaada ku jiro si aad u ogaatid waa inaad kormeer samaysaa marka sida aan sheegnana waxay ku siinaysaa taasi waqti fiican oo hore inaad tallaabooyin qaadid taasna marka waxay ku badbaadinaysaa dhaqaalo iyo in dalagaagii uu kaa qasaaro dhibaato weyn ay ku soo gaarto
sidoo kale waxay kuu sahlaysaa inaadan xilli ku habboonayn aad inta sun iska soo qaadato aad beertii la dhacdo oo environmentkii iyo cimiladii iyo bey'adiina aad halayso marka jaanis ayay waxay ku siinaysaa markaad samaysid kormeerkaas waqti hore inaad tallaabooyin qaadid intaad sugi lahayd xilli ay faraha ka baxday taladii marka xilliyada oo dry seasonka ama uusan roob ku jirin dhulka aad waraabiso meelaha aad waraabiso meelahaas ayuu isugu tagaa oo maaragtay uu ku noolaadaa oo beeraha lagu waraabiyo hadhow markii ay dhacdo rainy seasonka oo roobka uu da'o xilligaas ayuu marka wuxuu u guurayaa beeraha kale ayuu aadayaa marka sidaas darteed waxaa ku qasban tahay inaad kormeer iyo la socosho iyo kontroolid inaad wadid xilliga roob ku jiro iyo xilliga uusan roob ku jirin oo aad beerta waraabinaysid labada xilliba waa ku qasban tahay si aad u yaraysid inuu saa'id noqdo oo xad dhaaf ah xilliga roobka uu yimaado uu badanayo marka xilligii uusan roob ku jirin la dagaalan hadhow marka xilligii roobka uu yimaado insha allah waa yaraanayaan markaas tiradooda marka sidaas darteed sanadkoo dhan waa inaad kormeer ka wadaa weliba sida aan sheegnay oo aan videoga hore uga sheekaynay waxay leeyihiin generationno badan oo aad u fara badan marka mayskii xilliyadiisa kala duwanna weerarku way wadayaan iyo haddii weliba xataa galley aysan ku baxayn dalagyo badan sida aan sheegnay ayuu weeraraa oo galleyda kaliya kuma ekaado marka sanadkoo dhan waa inaadan hubkaaga wadataa oo la socotaa sida uu yahay oo kontaroolkaaga aad wadaa marka maxay tahay sababta kormeerka loo sameeyo oo u samaynaysid ugu baahan tahay qaarna waan soo sheegnay qaarna waan sheegi doonaa kuwaana waa ka mid yihiin marka inaad cayayaankii u diyaarsatid qalabkii iyo qaabkii aad ula dagaalami lahayd in aad u diyaargarowsid ilaa waxaad og tahay cayayaanka beertaada jooga suntii markaad soo qaadatid qaabkii ugu fiicnaa ugu habboonaa ayaad isticmaalaysaa iyo xilligii ugu habboonaa daawadii ku habbooneedna waa soo qaadanaysaa ilaa cayayaanka beertaada jooga ayaa taqaanaa taasna marka waxay keenaysaa inay bee'adii aadan hallayn lacagna aadan khasaarin oo aad intii ku habbooneed iyo xilliga ku habbooneed iyo daawadii ku habbooneed wix dhan inaad isku aadiso ayaa samaynaysaa marka faa'iidooyinka kuwaas ayaa ka mid ah marka anagii sheegnay laba qaab ayaa loo kormeeraa beerta midka koowaad marka aan halkan uga hadlayno waa waxa loo yaqaano pheromone traps marka muxuu yahay pheromone traps cayayaanaadku waxay iskula xiriiraan signal waxa la yiraahdo oo ah chemical ay jirkooda ka soo saaraan marka cayayaanaadku waxay soo saaraan iyo bini'aadamkuba kiimikooyin badan ay jirkooda ka soo saaraan marka kuwa ay soo saaraan cayayaanaadka waxaa ka mid ah pheromones oo weliba ay soo saaraan femaleskooda waxa loo yaqaana sex pheromones ay soo saaraan si ula xiriiraan ama iskula xiriiraan femaleka iyo maleku oo isku same specieska ah marka pheromoneskaas waxay weliba gooni ku yihiin cayayaanaad gooni ah femaleka waxay soo jiidanaysaa cayayaanaadkii labka ahaa ee ku habboonaa ayay soo jiidanaysaa cayayaankii marka wuu imaanayaa oo mailka ahaa femaleka ayuu imaanayaa hawshiisa ayuu qabsanayaa markaas ilaan wuxuu helay fariintii femaleka ka timid oo ah inay maaragtay diyaar tahay marka kaartadaas cayayaanaadku ay isticmaalaan ayaa marka waxaa lagu talagalay in laga faa'iidaysto oo la soo saaro marka pheromone oo sex pheromone in la soo saaro oo synthetic ah oo maaragtay warshad lagu soo saaro artificially loo soo saaro laakiin isku caraf iyo isku qaab ay yihiin midkii femaleka ay soo saaraysay cayayaankaas ayaa la soo saaraya pheromonekii marka warshadda lagu soo sameeyey ayaa waxaa lagu shubayaa marka weelashan aad aragtid oo meesha kusoo waran oo kale ayaa lagu shubayaa markii lagu shubo marka si tartiib ah ayay u sii daynaysaa dalagyada korkiisa ayaa la surayaa si tartiib ayay u sii daynaysaa marka ilaa ay ka dhammaanayso marka taas markay sii dayso hawada ay ku sii dayso dabaysha ayaa qaadaysa cayayaankan marka sex pheromonekan oo mailka ah meel fog ayuu kasoo urinaya waana duulayaa soo maahan isagoo duulaya ayuu marka soo gelayaa wuxuu u malaynayaa femalekii inay meesha ku jirto kabacdi marka kama bixi karo marka taas waxaa dhacaysa marka inaad mailkiina meesha ku qabato uusan femalekii uusan u tegi karin uusan isla seexa karin oo saas ay ku yaraanayaan koritaankii cayayaankaas waxaa kaloo ogaanaysaa ujeedada ugu badan oo loo isticmaalo ahna inaad ogaatid inta tirada ah ee cayayaankaas joogta marka usbuuc ayaa u xisaabinaysaa inta aad qabatay sidaas darteed ayaa ka qiyaas qaadanaysaa inay wax badan joogaan iyo inays wax badan joogin kolley insha allah markaan soo qorno PDF-ka ayaan ku qori doonaa inta xabo oo qiyaastii la rabo in la arko si aad action u qaadid tiradooda aad u fahantid marka xaggee laga heli karaa meelo badan ayaa laga heli karaa adduunka Kenya oo kale waa laga heli karaa Yurub oo kale waa laga heli karaa qaarkood waa iska raqiis qaarkoodna waa qaali marka waa aad ayaa looga baahan yahay dadkeenu haddii ay fahmaan aad ayuu u anfici lahaa inay isticmaalaan marka midda labaad haddii aad rabin inaad isticmaasho pheromone trapskaas oo kale waa inaad sidii aan sheegnay qalinka waraaqada aad qaadataa oo field scouting aad samaysaa oo aad beertii aad baartaa oo kormeertaa
oo kabacdi aad ka qiyaas qaadataa inta cayayaan joogta beertaada marka sida aan sheegnana ujeedadu waa inaad ogaatid early detection inaad samayso ood ogaatid inta joogta ukumaha caleenta ku dhegan kan yararka ah ee laavayga ah oo beerta ku jira kuwaasna sida aan sheegnay oo sahla inaad controlshid marka scoutingka marka waa inaad xilli hore aad bilowdaa oo seedling stageka oo ay yar yihiin waa markaasaa lagaa rabaa inaad bilowdid sababta oo annagii sheegnay in life cyclekooda 30 beri ilaa 40 beri ay soo gabangabeeyaan oo jiil cusub u bilaabanayo marka maalin kasta si saa'id ah ayay u badanayaan sababtaas darteed ayaa lagaa rabaa inaad xilli hore oo dalaggu uu yar yahay usbuucyada koowaadba oo uu soo baxo dalaggu inaad la socoto sababtoo markaas ayay bilaabaysaa inay ukumihii ay meesha dhoobto oo xataa markaas kulli insha Allah gadaal ayaan ka sheegi doonaa xataa gacanta ku burburisid ukumahaas marka waxaa lagaa rabaa inaad usbuuc kasta inaad baaritaan samaysid beertaada inta ku jirta cayayaanka iyo marka ay mirtu soo baxaysaba ama sabuulku uu soo baxayo markaasna waa la rabaa inaad sidoo kale aad controlshid markaas marka aad wax baaraysid oo beerta ku dhex socotid oo aad rabtid cayaanaadka beerta ku jira waa inaad fiirisaa marka calaamadaha oo ukumihiisii oo beerta ku jira cunitaanka ay samaynayaan dulduleelada yarka ah samaynayaan dhaawaca yarka ah laantii gaarsiinayaan droppingskooda ama saxarada ay ku reebaan kalar ayay leedahay waa arkaysaa waxyaabahaas oo dhan ayaa la rabaa marka inaad fiirisid iyo weliba xataa bubayga markuu yahay oo ciidda uu ku jiro ayada laftigeeda waa inaad ciidda ka fiirisaa marka badanaa labada caleemood oo ugu cusub ama saddexda caleemood oo ugu cusub oo markaa soo baxay kuwaasna fiiri aad ayuu maaragtay cunitaanka ugu bilaabaa qaybtaas ama ukumihii asagoo saaray waa inaad aragtaa hadhow markii dalaggu uu sii koro uu sii bato badanaa kor ayuu sii aadayaa marka qaybaha kore laamaha cusub oo soo baxay kuwaas ayaa la soconaysaa markaasna marka kormeerka beerta sidee u samaynaysaa markii aad rabtid inaad beerta kormeer ku samaysid waxaad isticmaalaysaa waxa la yidhahda nidaamka la yidhaahdo W ayaa beerta u baaraysaa 5 meelood oo ka mid a beertii ayaa dooranaysaa meeshiiba 10 ilaa 20 geed ayaa baaraysaa marka si aad u ogaatid sababtoo ah haddaad weliba meelaha oo geeska ah oo bannaanka ah waa laga durkaa xoogaa meesha dhexe camal ayaa laga bilaaba baaritaanka marka taas ayaa W-ga marka sababta loo samaynayo waxa weeye inaad ileen beertii oo dhan oo weliba haddii intaasoo hektar dhul aa haysatid geed kasta ma dultegi kartid oo ma baari kartid marka waa inaad si nidaam ah oo kuu sahlaysa inaad beertii oo dhan aad baartay camal kuu noqonaysa ileen gees kasta waa soo baartay dhexdii waa baartay markaas waxay ku siinaysaa qiyaas qaadasho oo beertaadii oo dhan ah ayay ku siinaysaa waxay ka dhigan tahay adoo beertii oo dhan baaray camal ayay ka dhigan tahay marka halkii meelo istaagto 5taas meelood 10 ilaa 20 geed ayaa baaraysaa oo fiirinaysaa inta ku jirta qiyaasta marka oo actionka aad qaadanaysid insha Allah kulli gadaal ayaan ka sheegi doonaa kuwaas ileen wax yar oo waxba ahayn haddaad ku aragto uma qalanto in la buufiyo marka field scouting marka aad samaynaysid oo fall armyworm aad rabtid inaad beertaada kormeer uga samaysid inta ku jirta waxay ku baysgaraysan yahay marka aqoon inaad u leedahay cayayaankii kulli dabcan cayayaanka nuucu u eg yahay iyo siduu u dhaqmo iyo life cyclekiisa waan ka soo hadalnay adigana baaritaan kale waa ku samayn kartaa sidoo kale galleyda ama dalagga kuu baxaya markaas waa inaad aqoon u leedahay marka taas waxay kugu sahlaysaa inaad marka haddii aad dalaggiina taqaanid cayayaankiina aad taqaanid inaad tillaabooyinka ku habboon aad qaadatid iyo weliba marka aad ogaatid qiyaasta oo dhibaatadiisu ay badanta oo dhibaatada u keeni karaa og tahay sidoo kale waa inaad ogaataa in maaragtay baaritaankan oo aad dalaggii baaraysid oo aad ka dhex baaraysid fall armyworm sida aan sheegnay qarash la'aan ma ahan qarash iyo waqti ayay u baahan tahay laakiin waa wax u qalma inaad samaysid tusaale ahaan marka 50 oo geed haddii aad baaraysid oo kale oo halkii geedna ay kugu qaadato 5 second inaad ku baartid waxay kuu keenaysaa 70 saacadood oo shaqaale ah in lagu bixiyo sida ay ku qiyaaseen FAO si aad marka si dhaqaalaysan oo habaysan aad baaritaanka u samaysid inta aad beerta gelin oo shaqaalihii u dirin waa inaad kaarta isla og tahay oo habaysan oo aad baaritaan habaysan oo nidaamsan waa inaad ku gashaa meeshii si waqtigiina uusan kaaga qasaarin baaritaankii iyo cayaankii aad rabtid inaad aragtana aa ujeeddada lahayd aa uga gaartid waa inaad nidaam u degsataa oo aad waxa ogtaa ku gashaa beertii uusan waqti kaaga lumin waxna aysan kuu dhaafin marka boqolkiiba imise geed ayaad u baahan tahay marka inaad aragtid oo fall armyworm ah oo ku jira beerta inta aad buufin bilaabin ilaa sida aan sheegnay wax yar oo waxba ahayn dad ku aragto ma ahan inaad buufin la dhex gasho sababtoo ah inta yarta aad dilaysid iyo qarash kaaga baxaya isma lahan iyo sunta kaaga baxaysa marka threshold wax la yiraahdo ayaa jira intaas markii la gaaro ka bacdi ayaa buufitaanka lagu bilaabaa marka insha Allah taasna waxaan rajaynaynaa videoga soo socda oo markaan ka hadlayno video
aan ka hadlayno buufiska ayaan kusoo dari doonaa kaartadaasna haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysteen videogan intaan video kale kulmi doonno beerasho wacan iyo salaamu calaykum waraxmatullah